Soo dhawaada dhammaan asxaabta sidii ballanta ahayd maanta halkan waxaan kaga hadli doonaa web development roadmap. Een, waxaanu ka fargarayn doonaa qaybaha uu kala baxo web developmentku oo ah frontend iyo backend oo aan labadaba qaadan doono wadiiqada ugu iisisan ee aad ku baran karto ama sida ay u kala horeeyaan ee aad u qaadayso tallaabooyinkaaga markaad baranayso web developmentka. Waxaynu isticmaali doonaa website-kan la yidhaahdo roadmap.shop ama roadmap.sh oo ah website aad u fiican oo kaa caawinaya inaad roadmaps badan hesho oo aan ahayn kuwan oo keliya. Bal haynu eegno. For example, roadmaps waxa ku jira backendkii, frontendkii, devopskii, full stackii, AI engineer, Android, cyber security, gebi way ku wada jiraan. Maanta inagu waxaynu interested ku nahay frontend and the backend. Marka website-kani waxyaaba uu ku fiican yahay waxaa ka mid ah for example topic HTML baad baranaysaa. HTML haddaad ku dhufato wuxuu kuu soo saarayaa description wax yaroo in yaroo sharaxaysa HTML buu kuu soo saarayaa. Halkan kalena wuxuu kaaga soo saarayaa courses free ah iyo qaar lacag lagu bixinayaba oo kuwa lacagta lagu bixinaya weliba wuxuu ku siinayaa 20% off. Marka waa website aad u fiican oo wax kasta iskugu kaa soo wada celiyey. Roadmapkiina wuu ku siiyey resourceskaad ka baranaysa waad ka helaysaa. Marka mid mid baynu u sharaxi doonaa iyo faa'iidadu leeyahay. Waxaynu ka bilaabi doonaa horta marka koowaad waxaad ka bilaabaysaa basicska HTML ayaad ka bilaabaysaa oo waxaad fahmaysaa elementskii, semanticskii, waxyaabihii oo dhan ayaad fahmaysaa oo HTML wuxuu kaa caawinayaa inaad samayso qalfoofkii website-kaaga. Kow, markaad qalfoofkii samayso ayaad barato sida loo sameeyo header, sida loo sameeyo navigationka, sida loo sameeyo list, sida loo sameeyo formska, waxyaabaha markaad barato ayaad waxaad ku xigsiin doontaa insha Allah CSS-ka. CSS-kuna waxa weeyaan qalfoofkii aad dhistay ayuu kaa wanaajinaya. Wuxuu kaaga darayaa style ama waad ku qurxinaysaa. For example, haddaynu aqal ka soo qaadno website-ka, HTML-ku waa dhigihii iyo aloolkii iyo wixii isku jiray. Waa qoryihii taagnaa, qalfoofkii taagnaa weeyaan. CSS-ku wuxuu ku darayaa kabdihii, cawsaskii, wixii oo dhan buu ku darayaa. Marka CSS-ku iyo HTML-ku waa laba iska fudud. Waxay u yara baahan yihiin inaad waxoogaa la yara qabsato. Laakiin badankoodu ruleska CSS-ku way iska wada fudud yihiin. HTML-kana aad buu easy u yahayba. Marka labadaa lagaagama baahna badanka dadku halkaa waxay sameeyaan qalad aad u weyn. Labadani kaagama baahna inaad xifdido. Waxay kaaga baahan yihiin inaad fahanto. Hadhow toole haddaad garan weydo rule sidii loo qorayay dee Google-kaad tegaysaa waad ka soo baadhaysaa. Laakiin haddaad concept-kii fahansan tahay easy bay kuu noqonaysaa inaad maaragtay aad hadhow baadhato. Markaad CSS markaa ka baxdo JavaScript baad u geli doontaa insha Allah. JavaScript markaa labadan ka horeeyay programming language may ahayn laakiin JavaScript waa programming language. Programming language-ka markaa basicskeedaad baran variableskii, data typeskii, functionska saa loo sameeyo, control flowgii ama if statementkii, loopingkii, wixii ay programming language lahayd oo dhan ayaad basicska ka baran doontaa. Marka haddaba aad saddexdaa barato waxa aad maraysaa meel aad apply garayn karto shaqooyin junior ah. Marka halkaa markaad marayso waxaad samaysaa shaqooyin iska apply garee waxbarashadaadana iska sii wado adoo shaqooyinkana apply garaynaya. Hadday kuu soo baxdo junior level baad ka bilaabaysaa, internship baaba lagu siin karaa. Marka adigoo shaqadii qabanaya ayaad haddana wax baranaysaa. Marka haddaba markaa JavaScript ka soo dhammaato waxa muhiima oo stepka labaad ku ah inaad barato Git ama version control wax la yidhaahdo. Version control-ku wax kale maaha. Code-kii aad markii hore adiga uun dee ku dhex yaalay computer-kaaga ayaa aad dhigaysaa meel. Meesha markaad dhigto dad baa kula shaqayn kara oo inta iyaguna meesha ka qaataan wax ka bedeli karo haddana soo dhigi kara. Marka version control-ku wax simple weeyaan. Waxa weeyaan meel collaboration ka dhaco. Waxaad arki doontaa dad badan oo sameeyey applications badan oo free ka dhigay
oo aad maaragtay adigu dib u isticmaali karto. Marka waa inaad Git iyo GitHub labadaa aad markaa barataa. Marka JavaScript dhammayso, labadaa waa inaad barataa. Markaad labadaa barato, waxaad gaadhaysaa meel ay cilmigaagu taagan yahay inaad samayn karto web application. Markii hore waxaad samaynaysay website-o, laakiin imika web application baad u soo gudbaysaa. So waa inaad barato waxyaabihii package managerskii, waa inaad barato build toolskii, waxyaabahaas oo dhan. So marka package managerka koowaad ee aad baranaysaa waa NPM. Kan isaga waxaa la yidhaha package manager. Wuxuu kaa caawinayaa inaad soo download garaysato librarieska aad u baahan tahay si aad u samayso web applicationkaaga. Marka aad package managerska barato, markaad barato version controlkii iyo package managerskii, waxaad diyaar u tahay markaad levelkaa taagan tahay inaad barato web framework ama JavaScript framework. Frameworkgani wax kale maaha, waa libraries isku tegay oo aad oo kuu saamaxaya inay easy kaaga dhigaan applicationada complexka ama aadka u adag inaad si easy u develop garayso. Marka frameworkan idinkula talin lahaa inaad barataan waxa weeyaan React, oo uu soo saaray Meta, waa free and open source, development fiicanna way ku wadaan. Marka React ayaad insha Allah baran doontaa markaad halkaas soo gaadho. Haddaba React markaad soo gaadho, waad isticmaali kartaa oo wuu ku anfacayaa CSS-kii aad markii soo baratay inaad ku install garayso. Laakiin waxaa jira wax isaguna framework, framework waa library aad u isticmaali karto inaanad adigu intaad style sheet samaysato file ah, aanad from top to down aanad adigu style garayn website-kaaga. Marka waxaa jira frameworks, framework maaha, waxaa jira libraries sida Bootstrap oo kale, Tailwind CSS oo already utility first ah oo classes ku siinaya aad ku apply garaynayso elementskaaga. Markaad React barato, waxaad isagana la baran doontaa Tailwind CSS oo kaa caawinaya xaggii CSS. Markaad haddaba intaa aad dhammayso barashadeeda, koley ma dhammaynaysaa, waxoogaa baad dee maalinba waxbaad baranaysaa. Laakiin markaad tiraahdo waxaad u tahay comfortable, ayaad u gudbi doontaa software testing ama web applicationkaaga front endka weliba testingkiisa. Testingku guud ahaanba software developmentka waa step aad ugu muhiim ah oo aanad dhaafi karayn. Waa meesha keliya aad oran karto softwarekan qoray ama koodkan qoray wuxuu u shaqaynayaa sidii aan ugu talagalay, waayo anaa taskareeyey. Markaad intaas soo dhammayso ayaad baran doontaa test oo isaguna kaa caawin doona inaad React applicationkaaga test garayso. Haddaba markaad halkaa taagan tahay, waxaad apply garayn kartaa junior to mid-level jobs waad apply garayn kartaa. Even kambaniyada qaar baad senior ka apply garayn kartaa. Waa inaad laakiin aad u sii dhex gashayo aad knowledge-kaaga ama skill-kaaga aad u fiican yahay. Marka halkaa markaad taagan tahay, front-endkaagu waxay ku dhisan tahay base aad u wanaagsan. Waxyaabo kaloo aad u baahantay inaad front-endka kasii fahantahay way jiraan, oo libraries badan iyo tools badan baa jira inaad barato oo kuu saamaxaya inaad waxyaabo badan oo problems oo kaa hor imanaya aad xalliso. Markaad halkaa taagan tahay, waxaad insha Allah u gudbi doontaa the detailed front-end roadmap oo isaguna intan kasii ballaaran, waxyaabo badan oo u baahantay inaad ku jiraan. Waxaad baran doontaa topicskan, waxaad baran doontaa other frameworks like Vue.js, Svelte, Angular waa badanka lama isticmaalo, so tayada dad doontood kaga boodi kartaa. Waxaad baran doontaa build tools like lintingkii, formattingkii, so prettier baad isticmaali doontaa. Waxaad baran doontaa Fate, waxaad baran doontaa Webpack, Parcel, waxyaabahaas dhan baad baran doontaa. Xagga kale security-ga waxaad baran doontaa Course-ka iyo waxay yihiin HTTPS-ka, content security policy-ga, waxaasan markaa kuu soo bixi doona. Markaad hostingkaaga soo dhadhacdo, TypeScript baad baran doontaa oo iyaduna aad kugu saamaxsan inaad applications
type safe qorto oo javascriptkii horodood u taqaanay waxyaaba badanoo waxay ku daraysaa aad loogu baahan yahay markii project kusii weynaadaba. Marka typescript baad baran doontaa, waxaad baran doontaa authentication strategieska, marka halkaasaad kasii wadi doontaa insha allah ambaqaadkaaga aad ku baranayso frontendka. Halkaasaan maanta ku eegayaa frontendka. Wixii aad su-aala ka haysaan waxaad igu soo qori doontaan commentska insha allah. Waxaan u geli doonaa markaa backendka. Backend developmentku wuu ka yara duwan yahay frontendka oo adigay HTML iyo CSS-ka kusoo bilaabay, haddana JavaScript oo programming language markaa yimid. Marka haddaba markaad backend joogto waxaa marka koowaad lagaa rabaa inaad language barato. mid baad markaa haddaad frontendka kasoo bilowday aad nasiib ku leedahayoo javascript baad already garanaysaa. Marka javascript ama go ama python kolba kii adiga ku sahlan oo iminka markaad frontend ka imanayso weliba javascript baad waxoogaa soo isticmaalaysa. Marka javascript baa lagu qaatay inaad qaadato. Marka programming languagekaaga javascript baad ka dhigatay. Git iyo githubna waad soo baratay, iyaga uma baahnid inaad ku celiso. Waad sii kordhisan kartaa markasta knowledgekaaga inaad sii kordhisaa way wanaagsan tahay, laakiin labada iyagana waa inaad already waad garanaysaa. Haddaba xaggan nimanna databases baad haddaba u baahanaysaa. Marka databaseku laba u kala qaybsamaan, waa qaar relational ah iyo qaar non relational ah. Marka badanka dadku waxay isticmaalaan ama kambaniyadu aad u isticmaalaan waa relational databaseska. Marka databaseska aad baranayso iminka 2024 waxaan idinkula talinaa inaad Postgres barataan. Postgres inaad barataan. Marka aad barato database-kii waxaad u iman doontaa APIs oo ah wixii aad samaysay waxaad kula wadaagaysay dadka frontendka aad ugu diraysay qof kale oo mobile application malaha sameeyey uu kugu soo xidhmayey. Marka APIs baad baranaysaa. Specifically waxaad baranaysaa REST oo aad iyo muhiim waa API convention REST la yidhaahdo oo waxay u taagantahay I think I can't remember representational state transfer programming application programming interface. Marka REST API baad baranaysaa iyo qaabka loo sameeyo REST APIs-ka. waxaad also baranaysaa JSON APIs, waxaad baranaysaa authenticationka, weliba authenticationka oo ah JWT-ga ama JSON Web Tokenska ayaad baran doontaa ama JWT-ga. Then markaad halkaa marayso waxa kuugu soo xiga inaad caching-ka barato oo wixii imika for example saad applicationkaaga uga dhigto more performant ama wax fast ah waa inaad waxyaabaha qaar cache garaysaa. Marka caching-kii waa inaad baratay iyadan tools baa jira like Redis imika xaggan ku mention garaysan. Marka caching-kiina baad baranaysaa. Marka caching-ka barato at that level waxa tahay qof backend application bilaabi kara, dhammayn karana. Markaad ku darto knowledgekaagii frontendkana waxaad samayn kartaa complete web application markaad halkaa taagantay. Waxyaabaha kale databaseska aad ka baranaysaa waxa weeyaan ORMskaad baranaysaa. Marka database-kii Postgres aad baratay unbaad knowledgekaaga markaad Postgres baranayso unbaad ka baranaysaa topicyada ORM-keedaad baranaysaa ama object relation mapping ayaad baranaysaa. Waxa weeyaan wax kale maaha ORM-ku waa library ama tool kaa caawinaya inaad markaad gasho inaanad qorin SQL mar kasta oo database-ka la enter garanayso ee aad maaragtay programming languagekaaga aad ku qorayso backendkaaga ama aad isticmaalayso aad maaragtay syntaxkeedii isticmaasho sa database-ka u dhex. Marka waxaa ka mid a ORMska aadka u caanka Prisma kaasoo kalaad baran kartaa ama Sequelize waxyaabahaasad baran doontaa. Asig waxa weeyaan waa best practiceska aad maaragtay isticmaalayso databaseska markaad joogto. Transactionska iyo waxay yihiin M+1 problemka waa problem caana databaseyada ku dhaca. Marka taa lafteedana waad familiar baad ka dhigaysaa.
then sayn markii horeba sheegnay waxaad baran doontaa insha allah testingkii backend. Haddaba markaad halkaa taagan tahay waxaad tahay qof intuu kasoo bilaabo kow ilaa iyo uu dhammaynayo samayn kara web application dhamaystiran. Waayo frontendkii waad iga soo bartay, backendkiina waad iga ka bartay. Marka halkaa markaad taagan tahay waxaad apply garaysan kartaa ama frontend jobs ama backend jobs ama full stack jobs, weliba junior to mid level jobs baad halkaa ku xarayn kartaa. backendku intanoo keliya maaha, wuu ka ballaaran yahay. Markaad intan dhamayso haddaad doonaysa inaad dhiib sii gasho waxaad taaban doontaa backend developer role oo intan ka ballaaran. Marka languagekii baa badanaya, ruby baa soo gelaysaa, rust baa soo gelaysaa, c sharp baa soo gelaysaa, java, php. Java imika maaha wax related imika, waa badanka laguma sameeyo, ma arag bade modern code baseska kuma arag baryaha. Waxaasoo dhan baad baranaysaa. Waxaad baranaysaa mysql databaseskaagaad badanaysaa. Waxaad baran kartaa weliba server side renderingkaad baran kartaa, server side cachingkaad baranaysaa, cdnska content delivery networkaad baranaysaa. Waxaad baranaysaa open api specska, authenticationkii oo oauthkii baad baranaysaa, open idgii baad baranaysaa, graphql baad baranaysaa, other protocol grbcgii baad baranaysaa, hashinkii iyo password kasta loo hash galay, cryptography baa soo gelaya xaggan, security wise baad baran insha allah waxyaabo badan. Marka waa kan isagoo kuu wada dhamaystiran. Waxaa halkaa kuu soo gelaya CICD-gii oo aad baran doonto insha allah iyaguna. Waxaasoo dhan way ku wada yaalaan. Docker baad baran doontaa, architectkii baad baran doontaa. Halkaasaad kasii wadi doontaa insha allah. Marka wixii su'aala haysaan igula wadaaga commentka hoose, anna waan isku daya inaan ka wada jawaabo dhammaantood. Maanta intaasay noogu ekaanaysaa. Maalin wanaagsan.